ugu horeyn laag saar muuqaalkan sabskaraab dhaho janaalkeenna adigoo riixaya calaamada gambaleelka mahadsani jamaahiirta Manchester United dhinac kasteetaba waxaa soo martay habeen dahabi ah oo aanan ka go'aynin xusuustooda ka gadal markii cirka ay u qaadeen dhulkana ay la dhaceen Manchester City oo uu kala dhaxeeyo xifaaltan aad u weyn kulanka wuxuu ahaa mid ka tirsan isbuucii 29aad ee Premier League qaabka ay ku bilaabatay ciyaartana waxa ay noqonaysay mid dhinac kasteetaba ay ku gacan sarayso Manchester City sidaasi oo ay tahayna Manchester United waxa ay soo bandhigtay banooni ku salaysan akhliyad kaasi oo noqonayay kubadaha weerarka gaadmada ah oo daqiiqadii 29aad ee ciyaarta waatii ekay Godigan uu dhulka la dhacay Bruno Fernandes seriga ayuuna ka yeeriyay garsoorihii dhexdhexaadinayay ciyaarta oo foul ayaa loo dhigay Manchester United waxaana uu istaagay tuuristeedii Bruno Fernandes oo la filayayba in uu ku dhirpaaxi doono goolka uu wardiyaha ka ahaa goolhaye Ederson laakiin taasi badalkeeda wuxuu lugta u geliyay geesigii reer France ee Martial banooniga oo aanan dhulka dhicinna wuxuu darba la bacsaday shabaqadii City oo marti ku ahayd istaadiyaha Old Trafford si waliba oo banoonigaasina ugu daba xariiftamo goolhayaha reer Brazil ee Ederson waa awoodi waayay in banaanka uu u saaro halkaasi ayuuna ka yimid bilowgii goolka koobaad ee Manchester United marka iyo wixii ka dambeeyayna jamaahiirta Manchester City waxay bilaabeen in ay isdhiibaan iyaga oo jooga maslaxada riyada ee Old Trafford halka jamaahiirta Manchester Unitedna ay yaqiinsadeen in ay baabi'in doonaan habeenku caawa taariikh xumadii ka haysatay Manchester City ee noqonaysay guuldarooyinka xiriirka ahaa waana ay dhacday midaas ka gadaal markii goolhaye Ederson uu isku dayay in lugta uu u geliyo banooni uu gacanta ku soo laagay mid ka mid ah saaxiibadiisa shabaqadana waxay ahayd mid iska haawinaysay laakiin ayar waxay u tagtay Scott McTominay oo halkaasina ka baxsaday darba nool ilaa iyo ugu dambeyntii la arkay iyadoo dul hogatay shabaqadii City Manchester City dhinac kasteetaba istaadiyaha Old Trafford waxaa ku soo martay habeen cara iyo ciilba ay kala soo baxeen inkastoo dhawaanahanba ay u ahayd hal iyagu ay iska yeesheen habeenku caawana magaalada Manchester waa habeen ay wada gaduudan tahay oo gabi ahaanba waxaa babanaya calankii Manchester United sidoo kale kooxda lagu naanayso siyaadinta cascas waqti xadarka kan waxay baacsatay kaninta shanaad ee kala saraynta Premier League iyadoona haysata 45 dhibcood sida muuqalaysana xilli ciyaareedkan kooxda uu hogaamiyo Macalin Pep waxaad ba moodaysaa in ay ka go'an tahay u soo bixitaanka tartanka ugu xiisaha kulul qaarada Yurub ee Champions League